مشرح مدحوينه أحمد عبد الله إبراهيم أحمد ثافي من لقالتين أنقنا واننا سود ويننا وانا إني دعيننا odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada beesha kuumade ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhaab ayaa kulana isugu yimaadeen si mug iyo miisaan leh ugu taageeray Axmed Cabdullaahi Ibrahim oo ah aqoonyahan u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee doorashada maamul goboleedka Jubbaland uqaasha madasha ka hadashay ayaa sheegay inay si weyn u garab taagan yihiin siyaasiga da'da yar ee u sharaxan xilka kursiga ugu sareeya maamul goboleedka Jubbaland iyagoo tilmaamay inuu yahay shakhsiga ugu habboon ee hogaamin lahaa shacabka gobolkaasi waxaan salaamahayaa ka soo qaybgalayaasha beesha kuumade marwooyin iyo mudanayaal meeshan waxaan u imaanay intii si badneed waan isu sheegnay waa masjid muhiim ah oo hadda ka hor arag fariinta naga soo gaadhay Axmed Saafi aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waa markii koowaad oo xubin sare oo kamid ah isxilqaamayaasha iyo aqoonyahanada beesha kuumade oo fariin noocan ah soo gaarsiyoon u fariisano boqolkiiba boqol baan u faraxsanahay waa fariin muhiim ah oo aad u saameyn ugu leh beesha kuumade meel kasta ay joogto waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inuu ku guuleysto waana u ducaynaynaa inuu Ilaahay ku guuleeyo waxaana soo codsaday wiilkaas Axmed Cabdullaahi Ibrahim ولي قف نصعد صدام مدحنimo raadinay waa loko Jubbaland إن شاء الله waxaan u duceynaynaa inuu helo intii absamaha meeshaas joogtay Jubbaland joogtana Ilaahay uu kooli hasi dadka markuu uu kooliyo wax wada wato waxba kama laaban kuumade ana iska saaray kuumade marka kuumade waxaan leeyahay hortu Ilaahay inaan la ilaaliyo arrimihiina Ilaahay mid ha ka dhigo wiilkaana soo codsaday maanta ugu horeeyay waxa uu duceynaynaa inuu helo wiilka dhalinyarada ah waxa leenahay soo dhawow kuumade gacmo furan buu kugu soo dhaweynayaa wadankaadi ku soo dhawow eed u dhalatay eed wax u soo baratay ee dibada aad wax uga soo baratay ee dalka wax uga baratay ku soo dhawow waan leenahay hadii Ilaahay uu ku calfo si wanaagsan inuu noo hogaamiyo dadka mideeyo wada tubtoosan qaadsiyo ayaan ka rajaynaynaa hamigiisana waan ku garab taaganahay Ilaahayna ha ku guuleeyo hadii uu calaf Ilaahay ugu daray cid kasta oo hami uu ku jirana waxaan jecelahay in uu noqdo tartan furan oo cid walba ay u furan tahay qofkii Ilaahay calaf uga dhigana uu hogaamiyo kuumade iyo Jubbalandba qaar ka mid ah odayaasha goobta ka hadlay ayaa sheegay in si weyn ay ugu faraxsan yihiin in siyaasigan da'da yar uu isu soo sharaxay inuu qabta jagada madaxweynenimo ee doorashada dhawaan laga filayo inay ka dhacdo maamul goboleedka Jubbaland ajandaha meesha loo yimid waa hal ajanduhu wuxuu yahay nin murashax ah oo reer Jubbaland ah dhalinyaro ah yaa ina soo codsaday oo yiri waxaan rabaa dadka deegaanka in ay ii fariistaan oo doorashaan u taagnahay ay soo dhaweeyaan waana markii koobaad waana qofkii koobaad ee arrinkaas qaxootiga la yimaada oo soo codsada wuu mahadsan yahay ninkaas murashaxa ah wuxuu ku mahadsan yahay in uu soo tabay dadkiisi qayb ka mid ah oo weligeed la soo tabin uu ku mahadsan yahay waana soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan inta nagaga aadan hawsha uu naga codsaday yaan qalbi furan iyo niyad furan yaan ku soo dhaweynaynaa Axmed Cabdullaahi Ibraahimna waa nin dhalinyaro kuumadu kamid yahay isaga ayaa soo xilqaamay oo waxbaan qabanayaa marba hadduu ninku yiraahdo ninkaas oo kale in la celiyo ma inuu Ilaahay waqtigiisa ka soo reebo mooyeen ninkaas waa nin soo xilqaamay kuumadan wax u qabanayaa madaxweynaha Jubbaland u qabanayaa hadduu yiri annagu waan taageersanahay guddiga kuumadaan nahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa musharaxa si adag baan u soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay musharax soo dhawow ku soo dhaweynaynaa
wiil dhalinyaro oo wanaagsan ayaa soo sharxay qabiilkana ka dhashay dalkana u dhashay wax aan maanta ku ognahay oo maanta aan ku diidaynayna ayna jirin meesha haday musharax noqotana hamiga qof kastaba waa gala walaalkeen waxaan u rumaynaynaa riyadiis ما شاء الله وحالين هاي نسود ويننا ولكن أحمد عبد الله إبراهيم أحمد سافي وحالين هاي ويلكم وويل ولكن أقويهنا وحنا قصوا عصدي إن قرب استاجوا الله دورته ما شاء الله إن دورته مدين هاي وحالين هاي ولكن ويلكم كي حلكوا كقول استراحة كاديجو إن شاء الله مركو حالين أقول يقولون مو إن نلقى عادتان marka koobaad ergadiina iyo odayaashiina iyo guddigiina reer Jubbaland ee halkan imaaday musharax madaxweyne Axmed Cabdullaahi Ibraahim Axmed Saafi ma nala qaadateen annaguna waan ina soo dhaweyninaa waan ina duceyninaa inaan maxaan ku dhahdaa waa ninka kaliya ee ina soo tagay ina tabina doona markuu xilka haduu Ilaahay ku guuleeyo inuu Ilaahay ku guuleeyana ka baryanaa waa ninka kaliya إن كربنا هدو حلتا إلهي كقولي يرتكن إنه كسارة قحوت النبادة ودتي سكوعلية وأننا قويهنا مناسبة دي نوسو أجيبتين مهدعلين بانو استاقي أنيقا وحي مارك تايسو دوين مشرحة ولسوه دوي هذا البدن هان مبوحشا ليري مركا وحانو مهدعلين هيا شعبوينها جوبالين كارهان باشو كومادي وقاشودي إيا وحكرت كودي إيا دمر كودي soo dhaweeyay musharax madaxweyne Axmed Saafi aad iyo aad baad u mahadsantiin si kastaba ha ahaatee Axmed Cabdullaahi Ibraahim oo ku magac dheer Saafi